صباح أنا قلت تاجر إسقيس كمان بوليو كل سجال بقول يلا بيا سجاشن كي أيوة حقيقي مقواي أرضي ستبوك أما حرن نر إسكول أو كله هي مروجدي يقول كي أن مالين تاس معنا بوليو كقاضي أيام كوجر واقصدي نوح برش الآن تدرتين دل يردو هاليس كجرتو دل كان هاليس كتاي هذا نحلو هذا سيان أوجد تواجب كدمير جاه iyo kan wadaninimo anoo madax bannaan waxaan go'aansaday in aan ka tago shaqo aan u hayay UN-ka una istaago badbaadinta jiilka mustaqbalka ee dalkeena dablay hubaysan oo deganay sarti Monopolio ayaan ka codsanay in ay noo banneeyaan daarta waxaa sidaas ku furnay iskoolka aan u bixinay Muqdisho Primary School dhowr jeer ayaan halis ku galnay oo nalagu soo weeraray iskoolka markii ugu dambeysay dablaydiina soo weerartay waxay dibadda u soo saareen annaga iyo ardaydiiba nin saaxiibkay ahaa iskoolkana ila furay ayaa igu yiri yaan iskoolkan dhexdiisa lagu dilin waan dareensanaa halista saaxiibkay iga digay laakiin waxaa igala cuslayd rajabeelka ku dhici lahaa arruurtii iskoolka dhiganaysay haddii la xiri lahaa iskoolka intaan ka quusan lahaa mustaqbalka ardayda waxaan goostay in aan xal raadiyo hal gandheer kadib ardaydii duruufta adag wax ku baratay waxay soo gaareen in ay dugsiga sare dhammeeyaan waxaa lagama maarmaan noqotay in ay helaan tacliin sare sidaas ayaan ku furnay macadka siman September 2001 waxaa qalin jibiyey dufcaddii koowaad ee macadka waxay ahayd maalin dareen weyn aniga igu leh guushii ardaydaas waa guusha hayaankii waxbarasho ee ka soo bilowday isgoyska Monopolio waalidiinta ardayda iyo macallimiinta joogay goobta qalin jibinta way faraxsanaayeen anigase waxaa ii gaar ahaa walwal aan ka qabay shaqo la'aanta ku dhacaysa ardayda qalin jibisay maadaama shaqada la isku siin jiray aqoon iyo hayb waxaan xasuustaa 7 arday in aan shaqo uga soo helay shirkaddii Nationlink waxaase shuruud la iiga dhigay in aan aniga damiin ka noqdo ardaydaas kama labalabayn inaan mas'uuliyaddaas qaato waxaan ku kalsoonaa tayada aqoontooda iyo wakhtiga aan gelinay barbaarinta ardayda waxaan ku barbarwaday shaqo cilmi baaris ah oo aan ku darsaynay dhaqarrada kala gaaray bulshada Soomaaliyeed iyo sidii loo dhayi lahaa waxaan tegay inta badan gobollada dalka waxaan baaris ku samaynay colaadaha iyo wixii ay salka ku hayeen hawshaas cilmi baarista iyo xal raadinta intaan ku dhex jirnay